ورحمة الله وبركاته. أولك واحد بدن بالليل وعلى سو دوية وعلى يرتا وحن محمد كوين إن دولتك يهانتيدا ينفتا لقبل اللقيستو لقبل باتيو لكن هذا الشرعية دي لقبل اللقيست هذا وعلى مركا أولك واحد ورصحافلات يأركتي يساس يلاتها معهن وعلى إنه ما أنت قاعد مسيري إنه كقاعدنا أنت لجاه ليه واجي هورين بيننا ضيعني وإنه دردرة إن شغل كلها ينقل ما أنت واحد ليه هاي أنت الصومالي باهي أيضا يسوقته باهي لا يقروا ونقوله ما نيسو إنه قاعد كقاعدنا إنه بناك كمر الصومالي اسكون تشنو قاعد كأننا جارنا هرمر كأننا سمايسنو أول بان ضيعنا إنه حمر بان كسر شقيني والله العظيم هو قامان شوفني بوليسكا والله تليك حجين كذا حتى هنا أوران كريم وخلدان تهدي حتى خلد سبعي. ماشي اللي يرادوا مقدسه وحي عاصمة الصومالية بربر حضور عينا ده كان هذا قبلنا كواب ترصده هي الصومالية كلاه أن حجاس أن متقنا مركز ديجان أولهين أنت هو اللي بدي باتي وحلو يجي استجابات هذا فربنا ولا لاي ولا قدعي ولا بركعي iyagoo caruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay xamar ka baxeen sidaa darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedino haday darab u dhintaan xildhibaankii qoray mas'uuliyadda hantidaada waa la yaqaanaa in mas'uuliyadda iyagoo ay qaadayaan barnaamijka waa loo baahan yahay noqtay waayo inaga meesha inoo joogaan waxa soo haray xamar waa guri Soomaaliyeed caasimadda Soomaaliya u tahay cid gooni u leeyahay ma jirto absolutely cidna cid ugu ma hanjabi karto taasina waa mid weeye marka taa anigu waxaan rabaa baaqeena inaynu ku darno taasina waxa weeye in mataqaana in la yiraahdo weeye waxa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri ma inta dastuurku waa ka soo horjeeda ninka la yiraahdo gudoomiye mursal shalay hadalkiisa waa wada dhageysateen wuxuu reer Puntland ku calaamadiyay inay muqdisho ka soo horjeedaan fowdana ay wadaan wax la qaadan karana maaha ninkii xaqiisa ka hadla waxa lagu calaamadinayaa fidmo inuu yahay wala la hadanayaa waana loo dhaaran dastuurka qabyada Soomaaliya haddii lagu heshiin waayo anigu waxaan qabaa reer Puntland way soo yimaadeen waa ay tashadeen go'aamada masiirka ka soo baxay wuxuu noogu jiraa ajandaha in la soo hormariyo Soomaaliya haddii wada tashan weysay in la kala tashado weeye عاصمة الصومالية صوماليا ونبي ونحسها الصومالية 4.5 وحي سوكرنا وحلو قيب سنة يا أولولي هاي و 4.5 أرنتان تاجن waxaan arkaa hadda mudanayaal ku koobaya oo kaliya dawladda federaalka way liid gareynaysaa boob iyo fawdo iyo boob dawladnimo ka socda laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo waxa qayb ka ah maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda muxaafid iyo mucaarad waxa la takoorayaa oo si gaar ah faquuq loogu hayaa xamar loogu hayaa Puntland iyo Jubbaland mar haddii caasimadii Soomaaliya oo maqaamkeeda in la fariisiyo ay ahayd ay cid gaari rabto inay saami ku yeelato kuraasna ku kororsato waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in aynu halkan ku qaadano go'aan adag oo masiiriya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awalka wax badan baa la yiri waa la soo dhaweeyay waxaan leeyahay horta waxaan maxamar ku ogeyn in dalka iyo hantida iyo nafta lagu bilaqaysto lagu dhibaateeyo laakiin hada sharciyadii waa lagu bilaqaystay hadda waxaan leeyahay marka hadalka waxa weeye warsaxaafadeed iyo aragti iyo saasay la tahay maahan waxaan leeyahay innagu maanta go'aan masiiriya inuu ka qaadano inta laga helayo waagii horeen baynuna dayacnay oo aynu durdurayna shaqul ku lahayn galay maanta waxaan leeyahay inta Soomaali baahi ayadoo isu qabto baahideeda ay garowarna ugu imaanayso inaanu go'aan ka gaadano aanu banaanka ka marno Soomaali iskuna tashano go'aankeenna gaarno horumarkeenna samaysano awal baan dayacnay waxaan baan ka soo shaqeynay والله العظيم هو قامان شوفني بوليسكا والله تليك حجين كذا حتى هنا أوران كريم وخلدان تهدي حتى خلد سبعي. ماشي اللي يرادوا مقدسه وحي عاصمة الصومالية
burbur hadduu dhacayna dadakan hadda goboladan ku abtirsada iyo soomaalida kale oo xaggaas aan mataqaanaa markaas deegaan u lahayn intaba waa lagu dhibaateeyey. waxaa loogu geystay dhibaato aad u fara badan. waa la laayey, waa lagu dhacay, waa la barakiciyey, iyagoo carruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay xamar ka baxeen. sidaa darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedinno hadday dharab u dhintaan xildhibaankii qoray maseejada handadaadda ah waa la yaqaanaa in mas-uuliyadda iyagu ay qaadayaan barnoon horta waa loo baahan yahay moogtay, waayo innagay meesha inoo joogaan. waxaa soo haray xamar waa guri soomaaliyeed, caasimad bay soomaaliya u tahay, cid goonni u lehi ma jirto, absoluut cidna cid uguma hanjabi karto. taasina waa mid weeye. marka taa anigu waxaan rabaa baaqeenna inaynu ku darno. taasina waxa weeye in mataqaanaa la yidhaahdo weeye. waxaa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri maa, intaba dastuurku waa ka soo horjeedaa. ninka la yidhaahdo guddoomiye mursal shalay hadalkiisa waa wada dhegaysateen. wuxuu reer puntland ku calaamadiyey inay muqdisho ka soo horjeedaan fawdana ay wadaan. wax la qaadan karana maaha. ninkii xaqiisa ka hadla waxaa lagu calaamadinayaa fidmoole inuu yahay, waana la handadayaa, waana loo dhaaran. dastuurka qabyada soomaaliya haddii lagu heshiin waayo anigu waxaan qabaa reer puntland waa isu yimaadeen, waa ay tashadeen, go'aamadii masiiriga ka soo baxay wuxuu noogu jira ajandaha in la soo hormariyo. dee soomaaliya hadday wada tashan weysay in la kala tashado weeye. caasimada soomaaliya soomaaliya o dhan bay udhexaysaa. soomaaliya waa 4.5. wixii soo kordha waxaa loo qaybsanaya oo loo leeyahay waa 4.5. arrintan taagan waxaan arkaa hadda mudanayaal ku koobaya oo keliya dowladda federaalka. dowladda federaalku way liid garaynaysaa boob iyo fawdo iyo boob dowladnimaa ka socda. laakiin waxaan rabaa inaan inii caddayo waxaa qayb ka ah maamul goboleedyada galmudug, hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda muxaafid iyo mucaarad. waxaa la takoorayaa oo si gaar ah faquuq loogu hayaa, xamar loogu hayaa puntland iyo jubbaland. mar haddii caasimaddii soomaaliya oo maqaamkeeda in la fadhiisiiyo ay ahayd ay cid gaari rabto inay saami ku yeelato kuraasna ku kororsato, waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in aynu halkan ku qaadanno go'aan adag oo masiiriya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. hadalka wax badan baa la yidhi, waa la soo dhoweeyey. waxaan leeyahay horta waxaanu xamar ku ogeyn in dalka iyo hantida iyo nafta lagu bililiqaysto, lagu dhibaateeyo, laakiin hadda sharciyaddii baa lagu bililiqaystay. hadda waxaan leeyahay marka hadalka waxa weeye war saxaafadeed iyo aragti iyo saasay la tahay ma ahan. waxaan leeyahay innagu maanta go'aan masiiri aynu ka qaadanno inta laga helayo. waagii horeen baynuna dayacnay oo aynu durduro aynaan shuqul ku lahayn gallay. maanta waxaan leeyahay inta soomaali baahi ayadoo isu qabto baahideeda ay garowa nagula imaanayso inaannu go'aan ka gaadanno, aanu bannaankaa ka marno soomaali, iskuna tashanno, go'aankeennana gaarno, horumarkeennana samaysanno. awal baan dayacnay. annagu xamar baan ka soo shaqaynay. wallaahi alcadiim hogaamaan joognay booliska. wallaahi taliyo ku-xigeenkaaga xataa inaadan oran karin waad khaldantahay haddii xataa khalad samey. meesha la yidhaahdo muqdisho waxay ahayd caasimaddii soomaaliya. burbur hadduu dhacayna dadakan hadda goboladan ku abtirsada iyo soomaalida kale oo xaggaas aan mataqaanaa markaas deegaan u lahayn intaba waa lagu dhibaateeyey. waxaa loogu geystay dhibaato aad u fara badan. waa la laayey, waa lagu dhacay, waa la barakiciyey, iyagoo carruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay xamar ka baxeen. sidaa darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedinno hadday dharab u dhintaan xildhibaankii qoray maseejada handadaadda ah waa la yaqaanaa in mas-uuliyadda iyagu ay qaadayaan barnoon horta waa loo baahan yahay moogtay, waayo innagay meesha inoo joogaan. waxaa soo haray xamar waa guri soomaaliyeed, caasimad bay soomaaliya u tahay, cid goonni u lehi ma jirto, absoluut cidna cid uguma hanjabi karto. taasina waa mid weeye. marka taa anigu waxaan rabaa baaqeenna inaynu ku darno. taasina waxa weeye in mataqaanaa la yidhaahdo weeye. waxaa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri maa, intaba dastuurku waa ka soo horjeedaa. ninka la yidhaahdo guddoomiye mursal
shalay hadalkiisa waa wada dhegaysateen wuxuu reer puntland ku calaamadiyey inay muqdisho ka soo jeedaan fawdana ay wadaan wax la qaadan karana maaha ninkii xaqiisa ka hadla waxaa lagu calaamadinayaa fidmoole inuu yahay waana la handadayaa waana loo dhaaran dastuurka qabyada Soomaaliya haddii lagu heshiin waayo anigu waxaan qabaa reer Puntland